sida karaamada iyo sharafta iyo milgaha leh ee u ajiibteen baaqii aan idinku yeedhnay ee ay shirka inoogu soo xadirteen u timaadeen qodobadii shirkeena ka soo baxayna waxaa inoo yeedhin doona guddoomiyaha markaan anigu hadal ka baxo laakiin waxaan doonayaa waxa weeye inaan idiin caddeeyo shirka caawa aynu halkan isugu fadhino iyo shirweynaha garxajis aanu maanta idinka warramayey midna sal kuma leh lacagna kaga dooni mayno ugumana baahnin wax Soomaali weyn ka socdo aan ismaqalno hadalkaa waxaan u leeyahay waxa weeye in dariiqu inaga xumaado maaha inaynu waddada ka baydhna maaha in annagoo salaadiintii aanu shirkeennu isu bedelo iyo shirkeena garxajis inaynu Soomaali weyn sacabka u garaacayna maaha Soomaali weyn waynu kala goonay laba dowladood baynu nahay laba dal baynu nahay wax inaga dhaxeeyaan Soomaalinimo haynin ma jirto laakiin waxaynu ka hadlaynay waxa weeye dalkeena maxaa ka dhiman maxaa hagaagsan maxaa si hagaagsan baynu ka hadlaynaa taa waxaan caddaynayaa dalkeena waxa ka dhiman baynu ka hadlaynaa in cadaalad wax lagu wada yeeshaynu ka hadlaynaa in waddankeenu waddan loo simayo noqdaynu ka hadlaynaa laakiin Soomaali weyn muskala kala darsamin ninkii isagu shakhsinimadiisa xamar ugu xidhay isaga ay u taallaa anigu idin kuma iman ma xambaarsani shirka garxajis kuma saraysna halkan caawa kan uguma inaan iman lacagtoodana ha haysteen wixii kale wadaana ha haysteen Somaliland baynu nahay Somaliland baynu nahay dalkeenaynu nabadiisa iyo jiritaankiisa ilaalinayna laakiin waxaynu sahaynaa waxa khaldan waxaynu khaldani waxa weeye dawladda maanta labada sidaan hadalkayga hore ku jirtay isu bedeshay in laba reer sheegtaan oo salaadiintoodii banka uga soo baxdo ee lagu dhistay weeye waxaynu sahaynaa waxaynu ku soo celinaynaa qaran Somaliland ka dhaxeeyo wada leeyahay geesiga oo loo siinayahay oo nin wax dheerayn oo nin waliba cadku ku leeyahay iyo xubintu ku leeyahay uu helo iyaynu ka hadlaynaa mid xitaa garxajis gaar u leeyahay ka hadli mayno mid reer kale gaar u leeyahay ka hadli mayno ujeedadaanu idinku nimi ee shirka u qabanaynaa taa weeye waxaan markaa leeyahay marwooyin iyo mudanayaalba idinkoo aad u mahadsan waxaan adkaynayaa yaan arrintu inaga baydhbaydhin yaan mashaariic kale maxayday shirka garxajis aan la odhanin gabood ha looga dhigto waar ma qabna baan idin looga dhigan maayo gabood ninkii xamar ku xidhanow waa idiin caddaynaya ninkii xamar ku xidhanow xamar maxayda kuma xidhnin shirka garxajis kuma xidhna kuma salaysna yaan arrinta waxaan ku gebagabaynaya hadalkaa waan adkaynayaaye yaan arrinku dariiqiisu inaga baydhin waxaan leeyahay waxa weeye dalkeennii baynu leenahay waxaynu u hurnay baa garanaysaan waxaynu ka doonaynay un baynu doonaynaa waxaynu u hurnay waxaynu ku doonaynay inay halkooda ku soo noqdaan kuwa dariiqa kala baydhayna waxaynu ku waaninaynaa inay taagartaan inta dambe oo Somaliland oo loo simayo oo la wada leeyahay gees ilaa gees dabadeedna ay Somaliland noqotay ku tamariso oo walaalo loo yahay intaa waxaan ku darayaa waxaan mikrofoonada ka maqlaa salaadiin baa siyaasadii waxaan anagu leenahay siyaasadda horta marka hore salaadiin baanu u nahay dadka oo mas-uul baanu ka nahay dalka iyo dadka mar labaadka waxa weeye hadday noqoto maamulka dowladeed inuu hanto oo sidaa aanu sheegayna dariiqiisa maro oo dowladnimada dariiqay leedahay la maro oo xilfiga iyo reeraha iyo qoysaska ka saaro waxaanu leenahay waxa weeye barkaba dheer baanu qaadanay nina kuma haysano anagu madaxweyne iyo wasiirtoono ma sharaxayn laakiin waxaanu diidanay oo aan kow ka ahay oo aanaan aqbalayn dowlad koox ku dhisan iyo dowlad laba qoys ku dhisan midna aqbali mayno mikrofoon dheer iyo mid gaanba waa ku sheegaynaa waxaanu leenahay wixii gaara ee shirkeenna garxajisna waxyaabuhu saxayo taasaa ka mid ah waxyaabuhu saxayo taasaa ka mid ah yaan maxaydi laysu baharagelinin yaan dariiqa maxaydi sheekooyin kale inaga soo gelin hadalkaa dheer baan waxaa maxaydi leeyahay gurbaa joogtaan annagu gudaha waa ka saxanahay marka hadalkii waxaan ku ururayaa intaa aad iyo aadna waa mahadsantihiin aad iyo aadna waa idiin bogaadinayaa
qodobadii shirka ka soo baxayna guddoomiyaha inoo sheegi doona mar labaad iyo mar saddexaadba farxadna waa idinku in farxadna waa idin kala tegaya waxa intaa noo raaca dagaalka aniga igu socda ceeb ma dhimin cid ma dilin cidna aayin intayna midina waa ila mid war maxay tahay dagaalka iyo ceebta nagu socotaa yaa naloo caayaya waxaa la leeyahay maxaa u sheegaysaan xagga maxaa u sheegaysaa wey allahu akbar waxaa la leeyahay waxa weeye nooga maganaysa waxaanu idinka doonaynaa waan idinku celceliyey ereygaanu anagu doonaynaa kaa weeye qoys uma jeedo reer uma jeedo markaan xitaa reeraha ka hadlayno reeruhu ha saxmeen baanu leenay dowladnima laba qoys ma gashaanu leenay waxaanu leenay kaa weeye waxaanu markaa leenay idinka doonaynaa inaad idinku noqoto sidaa maxayday cidna ka biqi mayno laakiin maadaama aanu xilkii idiin sidnoo salaadiintiinni nahay oo waayeelkiinoo guddidiinni nahay waa dee ciddii khaldan ee khalad waddo khalada haysana ee idinka reerka ka midana idinkaa u jooga annagu wixii aanu wadnee saxana idinkaanu idinka sugayna inaad nagu taageertaan arriya adduunya waa naga naysaa waxaan ii sheegayaa oo kale halkan Suldaan Cali Cumar oo loogu daaweyn uma ogoleen ayaan doonayaa inuu inoo xidho marka qodobada ugu waaweyn waxa weeye qodobka ugu horeeya waa midnimada garxays talabaad waa si guddo shirka garxays qabsanayo inteedii meesha ka hadashay iyo intii soo dhigtay tags amba dhambaal ama intii nala soo xidhiidho intuba waxay dhaheen shirkaa waanu taageersana waa soo sidaa maaha shirka mid aanu ku qabsanayna gaashaamo iyo meel kale maahe waddanka gudihiisaanu ku qabsanaynaa hargeysaanu ku qabsanaynaa furcaanu ku qabsanaynaa hawayaanu ku qabsanaynaa halkaanu doonaanu ku qabsanaynaa ka gelisa way dhici jirtay qaar badan baa dad baan loo soo daray naga mid ah waa kii hore waxaanu qabsanay markii layidhi ma tegi kartaan garxagsimo noqon kartaan ayaanu fadhi wadani kuma geli kartaan garxagsimo baanu ku galay soo maylaan garana imikana waxayna siisay watan baawar iyo waxaan ku sii kacno markii layidhi qabsanay waanu qabsanayna intiinaasina way ugu raacsantay wixii dhaqaalaha su gacan waan inteeda loo dhibanayna waanu qaadanay war samaynaan qaadan weliba waa meelo ilqifay baan idinaha iska sheegina ma doonin qoloyin kale inayna ogaadaan cali cumar inoo بسم الله الرحمن الرحيم أنا سويسنا هذا شركي الوطن علي سلطان كسر أوشري أيامهم وعن كذا عندك قبل المسارات مقشية وحوالي إنك إنها كلها كده وتقول فكر لما وحي لها هذا شوتي أنا وحوالي وحي لها ما هو حنكشنا وحوالي وحي أراها ميراها على الوصل مرة أرمها نوع عسوكرا أيها كملة يا العاطفة الغالية شكرا وإيوه حدا يهي تعانوا إذا